kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka dibadiisa iyo gudihiisaba naga soo gaaray halkani waa shabakada wadaagsin qodobada ugu doorka roon ee aan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah wararkii qaraxyada ku bilowday ee Kismaayo oo 15 saac kadib la soo afjaray madaxweynaha dawladda Soomaaliya Farmaajo oo war ka soo saaray weerarkii Kismaayo shakhsiyaadka caanka ah ee ku nafwaaya weerarkii xalayna waxaa ka mid ah hodan naaleeye iyo saygeeda oo ku dhintay weerarkii Kismaayo dawladda federaalka Soomaaliya oo la helay cid ka caawisa lidda xogta qaraxyada Muqdisho ka dhaca wararka dibadda ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah dawladda UK oo culays lagu saarayo inay aqoonsato maamulka Somaliland daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee wararka subaxnimadan aan idiin hayno waa 13 bisha Juulaay ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa ku dhawaad saacad ka hor soo gabagabeeyay weerarkii ku bilowday qaraxyada ee shalay galinkii dambe lagu qaaday hoteelka Cascasay oo kamid ah hoteelada ugu mashquulka badnaa magaalada Kismaayo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya tirada dableydii weerartay hoteelka ee saacadaha badan ka dhex dagaalamaysay waxaana la sheegay inay gaareen in ka badan 5 dagaalame tirada dadka ku dhintay ayaa iyana si rasmi ah loo ogeyn balse waxaa ku jira dad isugu jira wariyaal ergooyin gabar caan ka ahayd baraha bulshada iyo saygeeda oo wasiir hore ka soo noqday Jubbaland dhaawacyada ayaa la sheegay inay ka badan yihiin sodomeeye waxaa la filayaa in qaarkood loo soo qaado magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala Kismaayo waxaana uu ahaa weerarkii ugu horeeyay ee noociisa ay ku qaadaan iyadoo weerarkan ku soo aaday xilli magaalada Kismaayo isu diyaarinaysa doorashooyinka Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si kulul uga hadlay weerarkii shalay galinkii dambe lagu qaaday hoteelka Cascasay oo ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ugu horeyn madaxweynaha ayaa tacsi u diray ehelada ay dadkoodu ku dhinteen weerarkaasi sidoo kalena ku dhaawaca ah u rajeeyay caafimaad degdeg ah madaxweyne Farmaajo ayaa amray hay'adaha amniga inay sare u qaadaan sugidda amniga sidoo kalena wuxuu xukuumadda Soomaaliya faray in ay si degdeg ah gurmad caafimaad ugu fidiso dadka ay ku culustay xaaladoodu dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka dowlad goboleedka Jubbaland inay xoojiyaan midnimadooda iyo wadajirkooda isla markaana ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee maamulkaasi weerarkan oo ay sheegteen al-shabaab ayaa wali ka socda magaalada Kismaayo iyadoo rag hubeysan ay ka dhex dagaalamayaan gudaha hoteelka la weeraray in ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkaasi halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan xaaladda ayaa yara degan waxaana lagu soo waramayaa inay haatan la soo gabagabeeyay howlgalkii lagu soo afjaray weerarkaasi shakhsiyaadka caanka ah ee ku geeriyooday weerarka waxaa ka mid ah hodan naaleeye oo ahayd gabar caawin jirtay haweenka danta yar iyo wariye madax bannaan oo aasaasatay Integration TV sidoo kalena waxaa la geeriyooday saygeeda oo lagu magacaabi jiray Fariid Jaamac kaasoo ka mid noqday wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland hodan ayaa ku dhalatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 1976 waxaa la dhashay 4 wiil iyo 7 gabdhood hodan naaleeye iyo qoyskeedu waxay Canada galeen 84 isagoo saldhigtay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxbarashadeeda hoose waxay ka baxday West Hamburg Collegiate Institute halka University of Windsor ay ka qaadatay shahaadada bachelorka iyadoo ka baratay farshaxanka iyo xiriirka waxay qofku farfarcoon baraha bulshada waxaana ay ku lahayd dad badan oo ku xirnaa bareeda hodan iyo saygeeda waxay muddooyinkii dambe ku noolaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dawladda federaalka ee Soomaaliya oo haatan dagaal adag kula jirta al-shabaab ayaa waxa ay taageero kala duwan ka heshaa dalal badan oo daneeya arrimaha Soomaaliya Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka dhinaca militariga ka taageera Soomaaliya kaas oo qayb ka ah dagaalka lagula jiro al-shabaab safiirka Mareykanka oo fadhiya Muqdisho Donald Yamamoto oo la hadlay Shabeelle ayaa bixiyay xog badan oo ku saabsan taageerada ay siiyaan dawladda uu hogaaminayo Farmaajo Mr. Yamamoto ayaa sheegay in Mareykanka Soomaaliya uu ka taageero dhinacyo ay ka mid tahay sirdoonka sidoo kalena wuxuu tilmaamay inay jiraan unugyo guurguuro oo iyagu taageeraan kuwaas oo baadi gooba xogta qaraxyada ka dhaca Muqdisho waxaa kale oo carabka ku adkeeyay inay kala shaqeyn doonaan hay'adaha ammaanka sidii looga hortagi lahaa weerarada al-shabaab gaar ahaan qaraxyada ay ka geystaan gudaha caasimadda inta badan al-shabaab ayaa weeraro toos ah iyo qaraxyo ka fuliyay Muqdisho kuwaas oo khasaaraha badan ka soo gaaray dadka rayidka ah warbaahinta Kenya ayaa sheegtay inuu sii kordhayo culayska dawladda UK lagu saarayo sida ay u aqoonsan lahayd Somaliland xilli uu dhawaan golaha deegaanka Birmingham uu ku dhawaaqay inuu Somaliland u aqoonsaday dal madax bannaan shabakada Media Max Network ayaa waxay xaqiijisay in xildhibaano ka soo jeeda xisbiyada waaweyn ee UK ay warqad wada jir ah u qoreen ra'iisul wasaaraha UK Mrs. Theresa May iyo xogayaha arrimaha dibadda Mr. Jeremy Hunt taasi oo ku boorinayeen inay Somaliland u aqoonsadaan dal madax bannaan
shabakada ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in Somaliland oo hore u ahaan jirtay mustacmarada Ingiriisku xukumi jirtay ay xorriyadeeda kala soo noqotay Soomaaliya 91 iyadoo 28 sanadood ee la soo dhaafay ay maamulayeen dawlado la soo doortay oo baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen ictiraaf caalami ah. sidoo kalena waxay ka dhawaajisay in wakiilka Somaliland ee UK ayaan Maxamed Canshuur inay si weyn u amaantay golaha deegaanka ee Brinkman isla markaana si shucuur leh uga mahadcelisay golaha. shabakada ayaa ugu dambeyntiina waxa ay sheegtay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu isaguna si weyn uga mahadceliyay golaha deegaanka magaalada Brinkman isagoo oo talaabadaasi ku sifeeyay madaxweynuhu mid geesinimo leh oo golahu u qaaday taasi oo sii dhiirigelinaysa qadiyada goor istaaga Somaliland. daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee aan maanta idiin haynay. fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqatay channelkeena subscribe nagu dhiirigeli. inta aan warkaan iyo war kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.